odayaasha waxgaradka siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta ka soo jeeda gobolka Sanaag oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada Burco ayaa si kulul uga hadlay xariga xukuumadda Soomaaliland kula kacday boqor Cismaan Aw Maxamuud Buurmadow waxaanay sheegeen in sida ugu dhaxsaha badan xorriyadiisa loogu soo celiyo boqorka waxaanu ka cadhaysanay oo aanu cambaaraynayna arinta ka dhacday garsoorka ee Soomaaliland ee Hargeysa iyo sida sharafta iyo maamuuska iyo xasaanadii uu boqorku lahaa loogu tuntay khaasatan qarankan ballaaran ee uu boqorku ka soo jeedo waxaad moodaa in la iska indhatiray xaqiiqadana la darsoorkiina si khasaba ama si dadban wax ugu yeedhinaya si ay danahooda ugu fushadaan waxaanu aaminsanahay boqorka inaan loo xidhin waxa la sheegayo iyo meesha uu tagay ee Carmale iyo hadalka uu ka yiri wuxuu ahaa hadal nabadeed boqorku wuxuu yiri hadal nabadeed wuxuu yiri hal nabdo hal heshiyo dadka jaarka ee islaamka ayay isdilin dareenkii ka dhashay xarigii boqorka sifihii loo xidhay iyo sifihii loo horgeeyay sharciga ruuxaantii waxaynu ognahay Soomaaliland waxa la wada socoteen boqorka markii la qabtay in loo maray sifo aad iyo aad u qaraadh oo ah waxaan lagu la dhaqmin muwaadin reer Soomaaliland iyo qof xisaanad iyo karaamo ummadeed sita ummadda inta la eg karaamadeedii sita waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland annagoo karaameynayna wuxuu ku ololeeyay doorashadiisii dhaweyd ee 4 bilood iyo wax yari ka soo wareegeen waxaanu kor u qaadi doonaa garsoorka cadaaladdaanu hirgelin doonaa cadaaladda shaqayn doonta gacanta sarena lahaan doonta ma idhicin taas xaajadan afqallo abwaankii weynaa waxaan ka hayaa erayo ay ka mid yihiin kolka aad maxkamadaha tagtaa tacajabaysaaye kabatole maxkamad loo tirshay hadduu qalinka teelteelsho iyana waa tabaalaha waqtiga tayno aragna kama xuma dadka waa la xidhaa sifihii loo qabtay sifihii loo xukumay iyo cadaalad darradii bay dadka ka xun yihiin madaxweyne Muuse Bixi Cabdi markaynu inta dhaafno wax weeye waxaan madaxweyne ka codsanaynaa in loo soo celiyo boqorka xorriyadiisii iyo xasaamadiisii inaad u soo celiso adigu u soo celiso adigu Muuse Bixi Cabdi hadda tahay sababta weeyaan garsoor haday tahay haday filin tahay wixii baday wayna soo jiideen wayna aragnay boqorkii sida loo qabtay iyo sida uu arintiisa u dhacday waxay ka xun yihiin sida xun ee loo qabtay Cismaan loo qabtay boqor Cismaan Maxamuud loo qabtay bay ka xun yihiin siba loo qabtay aanu ku ogeyn dawladii hore ee Maxamed Siyaad Barre ee dalka laga xoreeyay si la mid ah boqor Cismaan loo qabtay waxaad moodaa taariikhdii inay tahay taariikhda lagu xukumay boqor Cismaan maanta lagu xukumay iyo maxkamadda xukuntay ma aha sharcigu sidaa baanu aragnaa waa dhaqan ciduu dhaqan u yahay dadku dhaqanka u ahaa fadhiya ama dunida baalaheeda jooga way ka xun yihiin meel kasta ay joogaan ciduu dhaqanka u ahaa boqor Cismaan Maxamuud xukunka ku dhacay aad bay uga xun yihiin una dul qaadan maayo xariga boqorka iyo falka lagula kacay baanu ka xunnahay oo cambaaraynayna waxaanu cambaaraynayna inanka yiri 2 sano ayaan jees iyo maxkamad ka weynaan maxkamadda ka weyn yahay baan ugu kordhiyay xarigiisii iyo dambigiisii waxaanu aragnaa 2 sano iyo jees-jeeska uu sheegay inankaasu inuu ku jees-jeesay boqorka inuu ku jees-jeesay hadal gun iyo baara baanu ka hadlaynaa waxaanu ka hadlaynaa dumarka iyo caruurtu hadalka ay ka kacaan ragguna way ka kacaan waxa la yeenin awr wado iyo ninaagi wada midna kama baydho haddii ay dumarka iyo caruurtu arrinka dhibaatada dhacda ay ka kacaan ragguna way gilgishaan oo go'a ayay ka qaataan dhulka ninka ka xidhan maanta Cismaan Buurmadow boqorka gidi jamici uu ka wada xidhan yahay haddii ay isleedihiin xariga uu isagu ku leeday maxay tahay hayday jeelka idina ku leedeen guryihiina
aa u aragtaan himilo wacan iyo haybad xarigiisa iyo qurux ma aha wallaahi qurux waxa lagu xidhay baa la yidhi boqorka ciidamada ha la kala qaado waa hadduu yidhi ciidamada ha la kala qaado 15 sano ciidamadu ay dhisnaayeen beeshan meesha fadhida iyo beesha bariga yumba ragoodu dhimanayee mucaaradka iyo marag baa ka dhintay iyo reer galbeed Ahmed Salebaan Carab Ahmed Kaafi Bulsha TV Burco.